gabdhaha Soomaaliyeed ee wax ka barta dalka Malaysia waxaa la soo sheegayaa in markii ugu horeysay loo qabtay aqoon isweydaarsi kaligood ah sidoo ku soo waramayo wariyaha TV-ga Universal uga soo warama Malaysia Saciid Cumar. seminaarkan u gaarka ah gabdhaha Soomaaliyeed ee wax ka barta jaamacadaha kala duwan ee ku yaala Malaysia laguna barayay isdhexgalka bulshada iyo waliba doorka ay haweenka Soomaaliyeed uga qayb qaadan karaan dib u dhiska dalka. waxaana casharada bixinayay gabdha Soomaaliyeed ee wax ku bartay Malaysia. seminaarkan ayaa waxaa soo agaasimay ururka ardayda Soomaaliyeed ee Malaysia. gudoomiyaha ururka ardayda Soomaaliyeed ee Malaysia Cabdullaahi Suldaan ayaa iiga waramay ujeedada seminaarkan. gabar ka qayb gashay ayaa iiga warbixisay waxa ay ka faa'iideysatay seminaarka. run ahaantii programkan seminaarka wuxuu ahaa program lagu horumarinayo gabdhaha Soomaaliyeed ee wax ka barta dalka Malaysia. waxaan ugu talagalnay inaan tusno doorka uga aadan dib u dhiska dalkooda Soomaaliya. run ahaantii programkan waa programka ugu horeeyay ee lagu qabta dalka Malaysia ee khaas ku ah gabdhaha Soomaaliyeed ee wax ka barta dalka Malaysia. waa bilow waxaan rajaynaynaa inaan hore u sii wadno hadda iyo wixii ka dambeeya haduu Ilaahay raad insha Allah. ahaantii wuxuu ahaa barnaamij aad u qiimo badan ee loo qabtay gabdhaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Malaysia. wuxuuna ku saabsanaa aqoon isweydaarsi iyo isdhexgal loo qabtay gabdhaha ardada ah ee ku dhaqan dalka Malaysia. waxaana rajaynayaa inuu noo sii socon doono barnaamijkaas. aqoon isweydaarsigani ayaa waxa uu ku soo gabagaboway jawi aad u degan, waxaana dhammaan gabdhihii ka soo qayb galay ay hoosta ka wada xariiqeen inay ka faa'iideystaan isla markaana waxa mid ay aad uga baahnaayeen. waxayna sidoo kale ka codsadeen guddigii soo qaban qaabay inay barnaamijyo kan la mid ah mar kale u qabtaan si ay uga faa'iideystaan. Saciid Cumar, Universal TV.